بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا دمان أصحابتا مeel waliba dunida aad ka joogtaan magacaygu waa Maxamuud YouTube channelkeen waa Engineer Maxamuud waa mar kale muuqaal cusub insha Allah muuqaalkani waa muuqaal taxane ah kuna saabsan maadada technology-ga fasalka afraad ee dugsiga sare waxaana markaasi ku qaadanaynaa su'aalaha iyo jawaabaha maadada technology-ga ee fasalka afraad ee dugsiga sare muuqaalkan muuqaalkii ku horeeyay waxaan ku qaadanay tobanka ugu horeeya ee markaasi su'aalo iyo jawaabaha maadada technology-ga ee fasalka afraad dugsiga sare su'aalahan iyo jawaabahana waxaan markaasi ka dhigi doonaa taxana ilaa iyo aan markaasi aan gaarno heerka ugu dambeeya ee dhamaadka ah muuqaalkani waa muuqaalka labaad aan ku soo bandhigayo su'aalaha iyo jawaabaha maadada technology-ga fasalka afraad ee dugsiga sare daawade haddii uu muuqaalkan kusoo gaaray like garay si dhiirigelin inoogu noqoto guuja badhanka subscribe gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaalada aan halkan kusoo bandhigno haddii aad ka mid tahay ardada u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedkan 2023-2024 muuqaalkani waa muuqaalkaagii waxaa ka horeysay 10 su'aal iyo jawaabood waxaad markaasi dib markaasi kaga daawan kartaa YouTube-ka ayaa dib kaga daawan kartaa casharka ku horeeyay haddii aad horey u daawatayna waxaad markaasi nasiib u yeelan doontaa 10ka markaasi xigto 10 ayaa markaasi soo duubi doonaa muuqaalka hore waxaan ku soo qaadanay 10ka su'aalood ee ugu horeeya muuqaalkanna waxaan markaasi ka bilaabi doonaa 11 ilaa 20 ayaa markaa geyn doonaa su'aasha 11aad waxay u dhacaysaa sida tan ay u dhacaysaa name magacaaw any three output devices waa saddex kamid ah aaladaha marka wax loogu soo saaro of computerka aaladaha computerka wax loogu soo saaro saddex kamid sheeg ayaa la leeyahay laakiin inta hadda meeshan ku qoran way markaasi ka badan yihiin haddii aad markaas saddex ka sheegtana ama su'aasha qaabkaas lagaga dhigana waa kaga jawaab celin kartaa aaladaha computerka xogta loogu soo saaro waxaa kamid ah monitor shaashada ayaa kamid ah oo shaashada waxay soo bandhigtaa qoraal sawir iyo waxay soo bandhigtaa muuqaal shaashada cod ma soo bandhigto waxaa kaloo kamid ah projector waa muuqaal bandhiga waa isna oo projectorka waxaan ku xiraynaa computerka si xogta computerka ku jirta aan ugu helno projectorka markaas aan kaga daawano waxaa kaloo kamid ah speakers sameecadaha aaladaha computerka xogta loogu soo saaro ay kamid yihiin sameecadaha printerka ayaa kamid ah oo waraaqadaha lagu daabaco network interface card ayaa kamid ah waa kaarka markaasi shabakada ayaa kamid ah oo waa output devices waa aaladaha markaasi computerka xogta loogu soo saaro waa su'aashaasna su'aasha 11aad ayay ahayd su'aasha 12aad isna waxay u dhacaysaa sida tan describe qeex system muxuu yahay system and its characteristic iyo dabeecadiisa sheeg ayaa la leeyahay answer jawaabtu waxay noqonaysaa sida tan system alena systemka ama habka is an interconnected set waa dejinta markaasi isku xirka of business procedures waa hababka markaasi ganacsiga used ee la isticmaalaya within one business unit iyadoo markaasi hal meel markaasi laga isticmaalayo ganacsiga working together iyadoo si wada jir markaa la isku shaqeynayo for a purpose ee ujeedo the characteristics dabeecadaha waxaa kamid ah marka of a systemku waxaa kamid ah interrelated components in la sameeyo xiriir isku xiran waxaa kaloo kamid ah environment deegaanka interfaces waxaa kaloo kamid ah isdhexgalka input iyo output inaan markaasi wax dhigan karno inaan wax la soo bixi karno su'aashaasna waa su'aasha 12aad jawaabteeda su'aasha 13aad waxay u dhacaysaa sida tan explain waa sharax the study waa barashada of systemka waxa la laho sharax su'aashan isna jawaabteeda waxay u dhacaysaa sida tan the study barashada learning of a system concept waa fikirka guud ee systemka leenahay has three fundamentals waxay leedahay saddex as implication oo markaas saameyn leh systemka must be designed waa in noqdaa mid loo nashqadeeyo to meet predefined targets in markaa la qeexo
hadafyada ama targetka bartilmaameedka marka la leeyahay. The components waa isku dhisyada half to half waa inay lahaadaan interrelationship and interdependency, waa wada xiriir iyo markaasi madax banaani waa inay wada leeyihiin. The organization goals hadafyada markaasi ururka la leeyahay as all have higher priority waa inay siiyaan leeyahay mudnaanta than it is subsystem goals marka loo fiiriyo hadafyada waaweyn. su-aasha 14aad waxay u dhicaysaa sida tan define qeex information system. maxay tahay information system? Information systems waa habka warbixinta accompanied network waa shabakad markaasi la isku habeeyay of hardware markaasi wax muuqda ah and software iyo barnaamijyada qaybta barnaamijyada labadaas ay noqon karaan. And telecommunications waa isgaarsiinta networks ee shabakadaha that users use to collect ay isticmaalayaasha si ay wax u soo ururiyaan. Create and distribute inay markaa abuuraan ayna qaybiyaan useful data xog markaasi waxtar leh from organization settings waa dejinta markaasi ee ururka. Examples ayaa halkan ku xusan waa tusaalayaasha of information system include waxaa kamid ah the following kuwan soo socda ayaa kamid ah. Marketing information system waa habka warbixinta markaasi suuqgeynta. B waxaa kamid ah payroll system waa habka mushaarka ee loo yaqaanaa. C waxaa kamid ah human resource management system waa habka markaa loo maareeyo isha markaasi bani'aadamka ama ilaha markaa bani'aadamka human resource management system. D waxaa kamid ah library management system habka markaasi loo maareeyo library iyo school management system iyo iskuulka markaasi qaabka ama habka markaa loo maareeyo. waxaa kamid ah university management system waa habka markaa loo maareeyo jaamacadda. F waxaa kamid ah restaurants management system habka markaa loo maareeyo maqaayadaha. marka kuwaana waa tusaale kamid ah information system ama habka markaasi wax lagu kala gudbin karayo information qeexitaankiisa. su-aasha 15aad waxay u dhicaysaa sida tan identify waa cadayda 5 key components waa shanta markaasi isku dhis of information system ee habka markaa warbixinta. waxaa kamid ah hardware oo ah waxyaabaha muuqda ee la taaban karo. software ayaa kamid ah qaybta barnaamijyada ah. People dadka ayaa kamid ah. processes waa hababka markaasi ay maraan. data xogta ayaa kamid ah. su-aasha 16aad waxay u dhicaysaa sida tan explain waa sharax the purpose waa ujeedada of information system ee habka markaa warbixinta. answer jawaabtu waxay noqonaysaa the following kuwan soo socda as some of the purpose of information system waa qayb markaasi kamid ah ujeedooyinka habka warbixinta. waxaana kamid ah provide information in la bixiyo warbixin that assists with strategic planning taasoo markaa lagu caawinaya habka markaa strategy markaasi qorsheyn in la sameeyo. better performance in markaa la sameeyo gudasho wanaagsan and increase productivity in wax la soo saar markaa la sameeyo. mid saddexaad waxaa kamid ah support the distribution of information in markaa la taageero qaybinta warbixinada to different departments waa qaybaha kala duwan of organization ee ururka for operating purpose iyo ujeedka markaas uu shaqeynayo. su-aasha 17aad waxay u dhicaysaa sida tan list waa tix some examples waa tusaalayaasha qaar of hardware kamid ah. jawaabtu waxay noqonaysaa hardware kan leenahay can consist of wuxuu ka kooban yahay servers ayuu ka kooban yahay waa aalad markaasi wax markaa la isku xiriiriyo oo wax lagu xiriiriyo. workstations ayaa kamid ah goobaha shaqooyinka. networks waa shabakadaha. telecommunication waa isgaarsiinta. equipment waa qalabyada markaa isgaarsiinta. fiber optic cables waxaa kamid ah fiilooyinka markaasi internetka ayaa kamid ah. cellular devices iyo aaladaha gacanta. scanners scanka ayaa kamid ah oo sawirada iyo waxyaabaha lagu qaado. digital capture ayaa kamid ah waa kaamirada markaasi wax lagu sawiro. and different technology iyo markaasi markaa qaybaha markaasi kala duwan ee teknolojiyada. basic markaa infrastructure taasoo markaasi aas-aas u ah ee kaabayaasha technology-ga.
سؤال سيدي طبعاً وحي ودعيسا سيدة software can be broken down. software waxaa loo kala jebiyaa into two main categories. waxaa loo qeybiyaa laba qeyb oo waaweyn. What are they? maxay kala yihiin? jawaabtu waxay noqonaysaa the two main categories waa labada ugu weyn aan leenahay of software. waxaa kamid ah system software and application software. system software waxaa kamid ah programyada ay taleefanada iyo kombiyuuteraadka ay isticmaalaan, halka application software-na waa applicationada anaga aan adeegsano. sida waxaa kamid ah Word-ko kale, Excel, waxaasoo dhan waa application software ayaa loo yaqaanaa. su-aal 19 wuxuu dhicisaa sida tan define qeex system analysis and design. baaritaanka, habka baarida iyo nashqadeynta. jawaabtu waxay u dhicisaa sida tan answer. system analysis waa baaritaanka, habka ama baarida, and design in nashqadeynta is the mechanism waa hab markaa mechanical ah by which people build taasoo markaas ay dhisayaan automatic information system. waa si dhaqsi leh habka markaasi warbixinta ay ku dhisi karaan. su-aasha 20 waxay u dhicaysaa sida tan describe waa qeex system analyzed waa habka markaasi baaritaanka and it is the following skills iyo xirfadaha soo socda. jawaabtu waxay u dhicaysaa sida tan system analyzed waa falanqaynta markaas ama baaritaanka, habka baaritaanka is a title waa ciwaana leenahay given to a person la siiyo qofka who studies kaasoo baranaya the problems and needs dhibaatooyinka iyo baahida of an organization ururka looking for iyadoo la raadinayo improvement in sare markaa loo qaado opportunities waa fursadaha for improving sare loo qaadaya quality waa tayada of service adeegyada oo product ama la soo saaraya reducing cost iyadoo qiimaha la yareynaya and increasing iyadoo sare loo qaadaya the income or profit waxyaabaha markaasi faa'iidada ama income waxyaabaha markaasi faa'iidada markaasi aad helayso. system analyze have the following skills habka markaasi baaritaanka waxay leedahay xirfadahan soo socda. working knowledge of information technology in markaa lagu shaqeeyo waxa loo yaqaano IT ama information technology. B waxaa la leeyahay computer programming experience and expertise inuu markaas qofka garanayo programmingka una khibrad u leeyahay oo qabiir qofka markaa inuu yahay. C general business knowledge inuu yaqaano cilmiga guud ee markaa ganacsiga. D good interpersonal communication skills inuu noqdo markaa qof markaasi xirfada isgaarsiinta markaa leh. E inuu noqdo flexibility and adaptability inuu noqon karo markaa qof markaa flexible oo iska caadi ah oona la qabsi leh. F character and ethics inuu leeyahay dabeecad iyo anshax inuu leeyahay. insha Allah muuqaalkeena halkan ayuu ku eg yahay.